boqolaal Soomaaliya ayaa buux dhaafiyay hool lagu qabanayay xaflad soo dhaweyn oo loo sameeyay gudoomiyaha Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe Professor Xirsi Maxamed Labagare oo maalinimadii Jimcaha ay soo gaareen magaalada Columbus asaga iyo xubno ka tirsan Ahlusunna wal Jamaaca qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Columbus iyo waliba jaaliyada ayaa ka qayb qaadanaya soo dhaweynta gudoomiyaha qaar ka mid ah culimada ayaa ka hadlay xafladan ayagoo muujinayay ahmiyadda ay nabaddu u leedahay Sheekh Cabdul Qaadir Cali Madoobe ayaa ka mid ah culimadii meesha ka hadashay dhinaca oday dhaqameedkana ugaasamaha Daw Aadan ayaa waxa uu ku dheeraaday dhibaatooyinka ka jira gobolada Jubbooyinka iyo Gado iyo in saddexdii sano ee la soo dhaafay halkaasi ka taagnaayeen dhibaatooyin aan la soo koobi karin Xasan Cali Cumar gudoomiyaha jaaliyada ayaa ugu baaqay dhinacyada diinta ku dagaalamaya inay midoobaan isla markaana ay ka mid noqdaan xisbiyada siyaasadda Sara Buraanburtooy ayaa doorka haweenka waxa ay ku tilmaantay inuu yahay mid muuqda tan iyo burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya loona baahan yahay in la muujiyo awoodda haweenka kuwaas oo kaalin buuxda qaatay inta badan ka soo qaybgalayaasha munaasabadani waxa ay ka dhur sugayeen qodobada wafdiga ka socday Ahlusunna wal Jamaaca oo noqonaya wafdiga ugu horeeyay ee soo gaara dalka Mareykanka lana kulma jaaliyada Soomaalida munaasabadan waxa ka hadlay ururada dhalinyarada waxaana Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka baratay qurbaha ugu baaqay dhalinyarada in waqtigoodii la soo gaaray loona baahan yahay inay ka qayb qaataan xal u raadinta mushkilada ragaaday ee dalka Soomaaliya Sheekh Axmed Xuseen oo ka mid ah culimada sida weyn looga yaqaano dalka Soomaaliya iminkana degan magaalada London ee cariga Ingiriiska waxa uu sheekhu xusay in 1976 lagu xiray gudaha dalka Soomaaliya xilli uu adeegayay dhinaca diinta shanta xabsi baan u galay diinta dadka hadda markuu leeyahay Xasan Daahir waa soo leeyahay aniga dil baa la igu xukumay 76 aniga hooyaday warqad baa laga soo leeyahay wiilkaada xalal la dilay adoo tacsidiga hadaan ku aragnaa qortaan ka gooyayna ayadoo lagu qaado way gurigeeda timid warqadaas anaga nala ku cabsiyaa habeenkii baa naloo sheegay oo la leeyahay waxaan rabnaa in leena cabsi anaga subaxdii ka dambaysanta naloo yimid waxa la yiri waxaan idinka rabaa 12 qof wada bixil dilaya marka liisa la qoray farta way tahay markaas ana hormara markaas waxaan rajaynaynaa in dulmina loo dilay oo aan maartay shahiid naqanayn Maxamed Shire oo ku hadlaysay magaca aqoon-yahanka qaal keenay Ahlusunna wal Jamaaca gurubyo badan baa qaabilay ila tahay hadaan reer u hayna am Soomaalida qorb joogta hadaan anu waxaan caaw sheegayaa wiligii supporterka aan anigu ah group kasta oo Soomaalino u socdo ayagu sidayna leeyihiin horta gabdhaha taageeradooda mar walba haystaan anaga beerjilay aan lagu arkaa laakiin caaw ma hagoognin hadda kadib lines iyo sides inaan qaadana la arkaayo sidii hore anaana iska sabcinin gabdho badan waa ay madaxayga waxayaan oo igu raacsiin abwaan Soomaaliyeed isla markaana qayb ka qaadanaya xafladani waxa uu ka tiriyay gabayo wadaniga oo ku aadan sidii dhibaatada looga bixi lahaa gabagabadii xafladda waxa ka hadlay gudoomiyaha Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe Professor Xirsi Maxamed Labagare oo asagu ka hadlay wax qabadka Ahlusunna wal Jamaaca iyo deegaamada ay ka arimiyaan Ahlusunna wal Jamaaca waxa ay tahay kaga sheekay maayo laakiin hadda waxa kaliya doonaya maadaama anaga oo dhan isku raacsanahay in wadankeena u baahan yahay in qaranimadiisa loogu soo celiyo sida ugu degdegta badan doorka ay Ahlusunna wal Jamaaca ka ciyaaraan Ahlusunna wal Jamaaca sida dugtihiinba waxa weeye dhaqdhaqaaq asaloba wax kale oo ku magacaabi karo ma jiraan yani grass root-ka ka yimid taas ayaa u daliil ah ama ugu wacnay in shakhsi anigoo kala uu inta caabud waqtago isku dayo inuu meesha maamulka soo dhiso muqdisho waan tegi karaa laakiin anigu dhaqdhaqaaqa aan ka tirsanahay waa dhaqdhaqaaq asaloba oo grass root-ka Soomaaliya ku jira
Soomaaliya kaliya ma aha gobolada Afrika oo dhan hadda ku yaala dowladaha Afrika ku yaala Tanzania haddaad tagto Kenya haddaad tagto Ethiopia haddaad tagto ahlu sunnadaas ayaa diinta ku fiidsay waagii diinta la fidinay diinta si fudud baa loo gaarsiiyey dagaal laguma qaadin ninna kuma dhiman qofna qoorta lagama jarin ninna indhaha iskama xirin culummadan ayagoo indhuhu shanta yihiin bay dadka u tagay waa intiisha Soomaaliya waa tan nin haboog xun in wax qaranaya la moodaa in fact la moodaa wax uu qaranaya bal nin indhaha xirtay iyo afka ma khayr bad ka rajaynaysa وانتو وضمنا على الأرض إنسان تشوفتان نكرر يروح بقية على الموسم هذا ينها أفكر كتان dadkan oo ay ka soo qayb galeen boqolaal Soomaali ah oo ku dhaqan magaalada Columbus Ohio isla markaana gudoomiyaha Ahlusunna ee gobolada dhexe Dr. Alabakar lagu weydiinayay su'aalo uu ku soo bandhigay siyaasadda hanaqaadka ee Ahlusunna wal Jamaaca ayaa waxa ahayd mid jawigeedu aad u degan yahay waana markii ugu horeysay oo gudoomiye ka socda Ahlusunna wal Jamaaca uu soo gaaro gobolka Ohio ee dalka Mareykanka iyo guud ahaanba gobolada Soomaalidu ay degan yihiin dalka Mareykanka. Universal TV Columbus Ohio